مدكيدنتي ماهلي نيمان دنيا لين مديغو مدكيدنتي ماهلي دالي يدر حمامي دايما دالي تيدي دالي يدر حمامي دايما دالي تيدي دالي يدر حمامي دايما دالي تيدي ku jiray daawadiisi daahirtaho nin daraano ku jiray daawadiisi daahirtaho aadu dayo dabu marayo isdedaya baanahay aadu dayo dabu marayo isdedaya baanahay aadu dayo dabu marayo isdedaya baanahay. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياتنا هو نقل الصعطة halkani waa Triangle TV oo aad uga barateen barnaamijyo kala duwan oo ku saabsan guud ahaan gobolka Soomaalida ama dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo gaar ahaan wajada iyo guud ahaan deegaanka Soomaalida oo dhan. Caawa runtii waxaa sharaf ii ah in aan marti u yahay Dr. Sadiq Enow inkastoo nasiib darro kamaradu noo soo bixi weeday laakiin sawirkiisa ayaan halkan inaga tusi codkiisu laakiin waa fasiix. Sadiq Enow Dr. Sadiq Enow runtii waa Sweden buu la degan yahay waa odayaasha wadan oo magac dheer iyo sumcad iyo kulle maad aragtay in laga yaqaan wadanka Sweden iyo guud ahaan wadanka Soomaaliya waxaan markaa rabaa in aan iskiin baro oo iskiin dhex baxo iniga iyo doctorka runtii doctorka isaga iskiin bari doona laakiin waxaan rabaa in yar ka hor maadartay inaan dhowr qodob oo ku saabsan barnaamijka caawa aan halkan ka sheego. barnaamijka saad ogtihiin ba dowlad deegaanka Soomaalida ayaa xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxay iclaamisay shir weyne wada tashi ah oo runtii ay isku yeedhay dhammaan uqaasha iyo siyaasiyiinta iyo ganacsatada dowlad deegaanka Soomaalida. hase ahaatee waxaad moodaa shirkii sidii oo loogu talagalay marka hore inuu dhaco Sabtida iyo Axadda ayaa sidii loogu talagalay aanan maadartay ilaa hadda u dhicin oo waxaa kamid ah maadartay ururada ka biyo diiday amba dhaliilay qaabka ay wax u socdaan geedi socodka shirka ONLF oo ah ururka ugu weyn ee Soomaalida dowlad deegaanka Soomaalida ama deegaanka Soomaalida oo dhan ee Itoobiya. marka su'aalahaas aan doctorka ka weydiin doonaa maadartay waxa uu fikirkiisa u arko shirka ujeedada shirka caynkan maxay ku soo kordhinayaan ummadda iyo siyaasadda kelilka maxaa waqtigan la joogo oo ah waqti iska xasaasi ah oo Itoobiyana runtii ay burbur qarka u taagan tahay. marka doctorku waxaan rabaa doctor ku soo dhawo marka hore in barnaamijka حربي ومهدسنتها ولا ودوهي adiga iyo daawadayaasha waa salaamantihiin ku dheeraan maayo runtii waxaan rabaa laakiin dadka in iskiin baro Dr. Sadiq Enow waa kuma waxaan ogahay inaad dhakhtar tahay inaad qoraa tahay iyo in aad siyaasina tahay oo xitaa xusbi aad asaastay marka bal adigoo soo koobaya taariikhda way dheertay ma sha Allah bal isbar daawadayaasha. بسم الله الرحمن الرحيم الله التوفيق لنا وافجيو مقعيق الصادقين وبالله
waxaan ku dhashay magaalada xamar waxay dhala aabiyo hooyo xilligii dhaqdhaqaaqii SYL uu socday bay ahayd 56kii madax bannaanidan ay soo dhoweyn dugsigaygii hoose dhexe sare waxaan ku dhamaystay xamar kadib ciidamadan galay waa ciidamada la xiiseynayay ahayd 70aadkii qaahira kuliya alxarbiya infact ma aan soo dhamaysan dagaalkii 77 baa socday dabadeed 79kii waa isaga baxay dalka afrikaan galay 81kiina yurub baan imid waxbarasho caafimaad waxaan ka soo qaatay ruushka ukraine waa midooda soviyeeti intuu jiray kadib waxbarasho dhaqaale level bajalara halkaanan ka qaatay Sweden master caafimaad waxaan ku sameeyey qaahira kuliyadda caafimaadka qasr alcayni dabadeed Puntland baan tegey dalkii waa uu kala burburay markaas nidaamyaa abuurmay Puntlandna waxyaabahan ka qabtay macallin jaamacadeed dhakhtar isbitaal ka shaqeeya suduwaha gobolka bari suduwaha wasaaradda caafimaadka dabadeed xisbi midnimo la dhaho baa xilligii Faroole madaxweyne Faroole uu ogolaaday in xisbiyada la furo xisbigaasaan oday ka noqday kadib dowladdii cabdiweli wax yar baan la shaqeeyo wasiirka caafimaadkan ka ahaa intaas bay maaragtay noloshaydii dhaqdhaqaaqa intii u weyneed hadda Sweden baan joogaa adiga buugaag taqriiban walow kulligood ay aanan daabicin 10 ka badan baan qoray badankood qadiyadaha Soomaaliya ka hadlayaan waxaa ka mid ah goortii dhulkayaga la qaybsaday sidii Soomaaliya loo qaybsaday baan kaga hadlayay waxaa ka mid ah dagaalkii Ugaadenya dagaalkii 77 Soomaalida iyo Ethiopia dhex maray waxaa ka mid ah dhalashadii iyo dhabarjabkii Soomaali weyn qadiyadaas yaan kaga hadlayay gaar ahaan SYL wixii abuuray iyo waxyaabihii markii dambe ay ku baabaaday adiga arrimahaas waa ka mid ah waxyaabahan taariikhda Soomaalida ka qoray buugaagta kale cilmi waa buugaag aqooneed cilmi iyo caqiido baa ka mid ah waxaa ka mid ah afkeena iyo fartiisa aqoonta philologiga afka Soomaaliga iyo literature-kiisa waxaa ka mid ah goor iyo goob time and space intaa dabadeed aabaxayn ciyaala haystaanahay alxamdulilah qaarkood waa koran jaamacaday ka baxeen qaarkood waa guursadeen qaarkood weli processkii dugsiyada ay weli ku jiraan intaasaan kusoo gabagabaynayaa xarbi maasha allah aad baad u mahadsan tahay Dr. Saadiq waxaan caawa halkan runtii marka koowaad waan kaaga mahad celinaya waqtiga qaaliga ah ee la siisay marka saad og tahayba waxaa jiray shir la iclaamiyay maalmihii la soo dhaafay oo loogu talagalay in uu dhaco uu qabsamo sabtida iyo axadda hadda fooday nagu soo hayo bisha 24keeda iyo 25keeda marka inta aan su'aalaha u gelin waxaan rabaa in aan yar dhageysiiyo daawadayaasha war murtiyeed ay soo saareen ururka ONLF uu soo saaray marka waxaan rabaa marka kadib baan galaynaa insha Allah barnaamijkeena waa kana ku soo dhawaada بسم الله shirweynaha wada tashiga bulshada deegaanka Soomaalida oo ka soo bilowday shirkii 4 ilaa 6 August 2021 ee guddiga fulinta jabada wadaniga xoreynta Ogaadeniya kaas oo ka dhacay magaalada Addis Ababa shirku wuxuu soo maray marxalado kala gedisan guddigna ay u ahaayeen asxaabta siyaasadeed ee afarta ah iyo guddi aqoon-yahana oo la magac baxay Xaldoon kuna socday markii hore wada tashi u dhaxeeyay xisbiyada iyo guddiga ayaa maalmihii u dambeeyay laga leexiyay wadadii saxda ahayd ee uu ku socday
waxaana laga saaray doorkii xisbiyadu ay ku lahaayeen si buuxdana loogu gacan geliyey loona adeegsaday ujeedooyin gaar ah kadib markii ay jawxa aragtay marin habaabinta geedi socodka shirka loona diiday in xisbiyadu kelmad rasmi ah ay ku yeeshaan iyo matalaad rasmi ah oo wadata astaamaha iyo shacaa'irka xisbiyada lagana soo qaaday in ay dhegaystayaal kan ahaadaan kulanka wax dowr ahna ayna ku yeelanin geedi socodka shirka kadib markii ay jawxa aragtay xaqiiqsatayna sida shirkii loo afduubay loona marin habaabiyey guddiga fulinta jabadda wadaniga xoreynta ogaadeynaya shir uu ku yeeshay 18 ilaa 20 Sebtembar 2022 magaalada Jigjiga wuxuu ku go'aansaday in ayna ka qayb galaynin shirkaas ilaa laga saxayo qaladaadkaas kor ku xusan jabadda wadaniga xoreynta ogaadeynaya midnimo isku tashi Allahu akbar bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam ama ba'du amaan xubnaha goobjoogka guddiga jabadda wadaniga xoreynta ogaadeynaya dhammaan mas-uuliyiinta kaleeta iyo qaybaha ururka ee goobjoogga wariyayaasha iyo bahda isgaarsiinta waad salaaman tihiin salaan kadib shirkan isaga juhdi badan baa la geliyey ujeeddo fogna waa laga lahaa hase yeeshee waxaad moodaa inuu ku yimid dhaawac ay u geysteen dad ujeeddooyin iyo dana gaar ah wato annaguna dan iyo ujeeddo gaara maanan lahayn masaalix caam ah iyo mustaqbalka bulshadan baan hiigsanaynay isaga ayaana wax ku dhisaynay bartilmaameed iyo xab meesha aan ka duulaynana noo ah bal hadday ay sidaas tahay annagu xoolana ma raadinayno doolarna ma raadinayno daarana ma raadinayno waxaan waardiyaha ka nahay waa mustaqbalka ummaddan iyo bulshadan waqtigooda iyo aayahooda dambe saas daraaddeed wax kasta oo aanan u cuntamaynin in aan qaadanno suurtagal maaha shirka annagaa soo bilownay hereer kala duwan buu soo maray meel buu soo gaaray 20 maalmood u dambeysay ayaa shirka waddadii uu ku socday laga leexiyey taasna ma aha wax noo cuntama in aan qaadanno way agtanada meel marka ka noqdo saas daraaddeed waxaan caddaynayaa sidii war-saxaafadeedka lagu akhriyey haddii dadka maamulka iyo qaab socodka shirka gacanta ku haya haddii ay ku guulaystaan in la bedelo qaab ahaan sida uu ku socdo shirka kaalin iyo dowr muhiimana laga siiya dadkii hawshan iyadaa alifay ee keenay noocay noqotaba maamulkiisa hogaamintiisa jahayntiisa iyo meelmarintiisa intaba waxaan u arkaynaa in uu yahay shir aanan noqon karin maslaxad caama mid dowladda leeyahay halkaasaan ku hor istaagnay waadna mahadsan tihiin bulshada inteeda kaleetana way mahadsan tahay shacabkana waxaan u sheegaynaa annagoo khayaano naga filmaysaan Dr. Sadiq waad dhageysatay waad maqashay eedaynta loo soo jeediyey xukuumadda marka inta aanu shirka u gelin waxaan rabaa inaan ogaado shirarka caynkan ah faa'iido intee leg bay u leeyihiin ummadda deegaanka guud ahaan iyo xukuumaddaba xarbiyow waa marka koowaade waxaan jeclahay inaan dhegeystayaasha maqashiiyo arrinta gobolkan waxay udub dhexaad u tahay qadiyadda ummadeed ee Soomaali oo dhan tan iyo bartamaha qarnigii tegay ma jiro guri Soomaaliyeed baa la oran karaa guri Soomaaliya ku yaal oo aanan kharash kaga bixin qadiyadan ama si toos ah kharashkaas soo baxo ama si dadban soo baxo markaanu taasi ka gudubno shirka aynu shiro waa aanu heshiino dadaan heshiisahan baa kala yaaca sideedaba ma aha qadiyadan keliya qadiyad walba dadka ay khusayso inay shiraan oo si joogtaa u shiraan khasab maaha shirka koowaad iyo kan labaad in lagu heshiiyo wax badan waqtiga xallinaya in la shiro oo la isu yimaado oo aan la kala anfariirin oo aan la kala yaacin oo aan wax kala maaragtay
nin hulaab xun inuu wax qarsanayaa la moodaaye aan la hulaab xumayn waa sida ay ku qurux badan tahay caqliga saliimkaana u keenayo isla markaasi qolada markaas gacanta ku haysa shirka iyagana waajib baa saaran aanan qolooyinka kale saarayn waajibka saaran wuxuu yahay in shirka laga miro dhaliyo wuxuu u baahan yahay mechanism inay mechanismkaas iyo ethic anshixii shirkaas uu ku fuli lahaa kuna guulaysan lahaa inay miiska soo saaraan baa iyagana laga rabaa waayo bani aadamku laba wax buu ku wada socdaa imaa in la kala xoog badan yaho la ismuquuniyo wixii kaa xoog badan waa ka cabsanaysaa waa dee isagii rasuulku ku ducaysan jiray calayhi salaatu wasalaam ilaahu waxaan kaa magan gallay man laa yarxamunaa walaa yakhaafu calayna qodob labaad oo bani aadamku uu ku wada socon karo waxa weeye in la isfahmo tan xadaariga ahoo wanaagsan waa in la isfahmo waa dadka ilbaxa ah waxa ay maamulada ku wada dhistaan oo ku wada socdaan oo isu tanaasulaan iyagoo qadiyad sare eegaya ufuq sare ka fekeraya masaalix fogna ilaalinaya si taa loo helo marka qofka markaas gacan sarreeya ama maamulka haya isagaa laga doonayaa inuu xilkaas sare uu qaato shir joogtaa dadkiyo la soo dhoweeyo kalsoonidoodii la abuuro loo debecsanaado marka shirka faa'iidooyin shir oo dhanba qadiyad kasta waxay ku timaadaa guusheeda in laga shiro oo si daacada loo wada hadlo oo qadiyaddii aanan laga munaafaqayna daacad loogu adeeg waayahay waxay iminka ONLF ku eedeynaysaa xukuumadda kow waxay leedahay anagaa wixii soo wadnay oo fikirka lahayn oo ilaa intaa soo gaarsiinay iminkana waxaad moodaa bay leeyihin in la afduubay shirkii waa eedeyn weyn runtii laakiin si aad u aragta adigu ma eedeyn afduub intee leeg weeyaan eedeyn in afduubka ay ku eedeynayaan xukuumadda ayaa is leedahay inkastaan warkii gudihiisii aanan hayn laakiin haddana sideed u aragtaa khibradaada markaad eegto de waxay ku qurux badnayd dhinaca kalena in la eego hadda waxaanu dhegaysanay go-aankii ONLF keliya ONLF horta waa jabhad soo halgantay oo yani masiirkeedii taariikhday soo martay maanu mooganin soomaalida inteeda badan waa la socdaan inta aan la soconna kolleyba magacaas waa ay hayaan halgan adag xukuumado aad iyo aad u dhib badan bay la soo tacaamuleen iyaga oo siday calankii xuquuqda dadka halkaa ku nool qadiyadoodii arrinka iyaga waana ku mahadsan yihiin taariikhdana waa u gashay ilaahay hortiina waa ka helayaan hadda arrinkan ay sheegeen kooda keliya haddaanu ka cabir qaadanno waxaad moodaa inaan cadaalad darri lagu dhacayo laakiin aanba ka soo qaadno sidaas ay wax u dhigeen sideedaba afduub wax kuma socon karaa wiilwaal buu ahaa ninkii ka tegay oraahdii ahayd rag wax walba ku dayo walaalow wuxuu ku dhaamo waaye mar haddii bani aadamku ay qadiyad ka dhaxayso weliba soomaali haddaan nahay masiir adag baanu maraynaa masiir in magacayagii uu tirtirmo in ummad ahaanteennii ay meeshaba ka baxdo maaha dadka soomaaliyeed oo ku nool dowlad degaanka keliya xataa soomaalidii kale bay maaragtay culaab ziyaada maanta saaran yahay soomaalida jabuuti dheh soomaalida soomaaliya ku nool soomaalida NFD ku nool marka iyada oo la qiimeynayo culayska jira inta uu la eg yahay iyo inaan looga bixi karin kala tagsanaan iyo kala tafaraaruq in laysu tanaasulo oo walaalow la dhaho oo koridoorka wax badan lagu soo dhamaysto intaanba shirkaba la imaan in wax badan koridoorka lagu soo dhamaysto
inay jiraan dad u kala dabqaadaya xisbiyada dalka ka jira dad aan dana siyaasadeed ka lahayn hawshan oo qodoba meeshooda ugu tago u kala dab soomaalidu waxay balo ku dhigeen waxaanu naqaan kala tag 100% iyo wada socod 100% 99 qadiyad baa u dhaxeeya oo lagu wada socon karaa iyadoo qadiyadaha qaar la isku diidan yahay baa qaarna lagu wada socon karaa waxay marka ila tahay inaanan la kala tegin sida ay sheeganayaan oo alefna nimanka maamulka ayan u dhuujin oo dhihin 100% taladu waa teena ilaa waa la shiraya haddii la shiraya waxa weeye ra'yigaaga miiska soo saar ra'yigaygaan soo saaraya qadiyad weeye waxa loo hiilinaya qadiyadaas oo jiilasha soo socda loogu hiilinayo qaabkii loogu hiilin lahaa baa laga wada tashanaya tashiga iyo shirka kaawey waayahay qoraal mustafa madaxweynaha maxamed cumar cagjar ayaa qoraal facebookiisa oo soo dhigay ayaa wuxuu ku qayb kamid ah wuxuu leeyahay waxaa caddaatay in maamul ina kala kaxayn amba kala qaybin yani maamul kala qaybi inuuna jirin balse mabaadi iyo dano siyaasadeed ayna kala qaybiyeen maxaad u malaysaa inuu u jeedo inkastoo sababtoo ah warmurtiyeed amba war-saxaafadeed mayso gaaray xukuumadda ilaa inta aan ogahay laakiin isagu facebookiisu ku soo qoray marka danaha siyaasadeed ee maxaad u malaysaa waa isla maanta wuxuu soo saaray qoraalkan waa maxay danaha siyaasadeed ee kala kaxeeyey baad is leedahay isaga iyo mucaaradka sideedaba xarbiyow siyaasigu dana siyaasadeed buu leeyahay sideedaba siyaasi nooc kasta uu yahay waayo siyaasadaaba waxay ku dhisantaa masaalix qadiyadan oo kalena haddii aan si guud u hadlo shirkaanba aan ka hadlin aan dhinac dhigo qadiyadaha noocaana kuma fiicna siyaasiyiin inay marka hore kulmaan qadiyadaha noocaana waxay ku fiican yihiin rag visioneer ah oo dhinacyada ka socda inay soo karkariyaan iyadoo bisil markaa siyaasiyiintii miiska loo soo saaro sababtoo ah markaan adna siyaasi ahay adna siyaasi tahay waa adag tahay inaan maaragtay wax ku heshino adduunyadana ma jidho problem ummad haysta problem level ummadeeda oo ay siyaasi xalliyeen taariikhda adduunka laguma hayo bilcagsi siyaasigu waxbuu halleeyaa waxbuu burburiyaa arrintaasi waa aan la qabaa laakiin de isaguba siyaasi weeye sowma marka haddii ku soco macnaha waxaan ka wadaa qadiyadda caynkaana in siyaasiyiintu ay sabka hore fadhiistaan oo ka wada doodaan waxaa ka fiican rag visioneer ah visioneer markaan leeyahay waa intellectualka waa culummada waa oday dhaqameedyada waa raggaas in loo dhiibo qadiyadda ee iyagu soo karkariyaan siyaasigu uu noqdo mechanismkii fulin lahaa hawsha waayahay haddii uu shirkani uu qabsoomi waayo oo laisku afgaran waayo iminka kolley intaan ognahay oo nafta shuruudo may wala qaadicin shirka laakiin shuruudo ula yimaadeen xukuumaddii haddii shuruudaha laisku fahmi waayo oo uu qabsoomi waayo ayaa khasaara isleeda ma xukuumadda khasaartay ma shacabkaa khasaaray ma mucaaradkaa khasaaray khasaaro dhinacuu raacay wallaahi arrintaasi sida ay iigu muuqato aniga aragtidayda soomaali oo dhan baa khasaartay soomaali oo dhan ninka xamar jooga khasaaray u tahay kan kismaayo jooga khasaaray u tahay kan garowe jooga iyo kan hargeysa jooga iyo kan jabuuti intaba khasaaray u tahay waayo soomaalida deegaanka ku nool waa qowmiyad ka mida qowmiyadahaas dowladda etoobiya ay ka kooban tahay markii qowmiyadihii kale ay ishaystaan markay aragtid cafar oo mucaaradkoodii mu'ayidkoodii shacabkoodii dowladdoodii xataa cafartii jabuuti deganeed cafartii eritrea deganeed ay mid yihiin
marka aragtid oromadii qowmiyaadkii oromada oo qadiyadoodii midka ah markaad aragtid qowmiyadii amxaarada qadiyadeedii midka ah tigray waaba u jeednaa say u mitidayaan in soomaalidii oo weliba la oran karo dadka taariikhda etoobiya loogu dhib badnaa dhibaatada dowladihii etoobiya soo maray xayli salaasi iyo mingista especially iyo tigraygiiba ku dar dhibka ay ku hayeen shucuubta reer etoobiya dhibkii ugu badnaa soomaali way ku hayeen in maanta duruus laga qaadan waayo waa ayaan daro dhibka isaga ah wuxuu yani lama dhihi karo onlf keliyo dhib ku haya lamana dhihi karo dowladda nimankan dowladda matalayo dhib ku haya dhibka dhammaantood dhibka waa ku haya annagana qayb waa naga soo gaaraya waayo markay isku lugoduudaan oo etoobiya ay dowr fiican ku yeeshaan annaga waxbayna taraysaa soomaalidii dalka soomaaliya ku jiray wax weyn bay u tahay in soomaalidaasi ay isqabsadaan oo lugahooda ku istaagaan oo tala ku yeeshaan etoobiya gudaheeda waaya xukuumadaha guud ahaan hamba xukuumadda mustafa maxamed cabdi cumar cabdir ha noqotaan ba xukuumadii kuuri ha noqdaan guud ahaan waxaa mar walba lagu dhaliilaa in ay amarka toos adiis uga qaataan oo ayna runtii eegin danta guud ee shacabka dowlad deegaanka maadaama waxaan usoo socda su-aashaadii ahayd qowmiyadihii cafarta kale isku xirayay marka eedaas waxbaa ka jira is leedahay oo runtii daliil baa jirto oo dadka siyaasiyiinteenu maanta doorkii loogu talagalay inay ciyaaraan kama ciyaaraan hadday soomaali yihiin horta anigu degaankii mana joogo xaqiiqatan xogtaas hoosena lama aan socdo mid ma qurux badna in caadifad wax lagu xukumo oo siyaasaddu qunyar socod waxay u baahan tahay hal tallaabo gadaal u qaado si aad laba tallaabo horay ugu qaado soomaalidu siyaasadda waa ka maqan tahay in lala jaan qaado dowladda dhexe waa wax qurux badan oo dee nabaddaas la helay oo aan horey loo haysan iyo processka nolosha ee socda haba iska tabar yaraadee waa wax dhan laakiin at same time in qadiyadaadii aad boqolkiiba boqol baasib ka ahaato sida hadda gobolka city ka dhacdo kale arrintaasina waa laga fiican yahay sababtoo ah dee maaha in hal tallaabaan gadaal u qaadaya weligeyna gadaal baan u socon waxa weeye ma aha siyaasad qurux badan geeska africa waa wada ruxmanaysa shiddaa ka wada jira baahi baa jirta siyaasado qallabsan baa jira fursadaa jira in fursadaha laga faa'iidaysto intii laga faa'iidaysan karo iyadoo xigmad la adeegsanayo aad bay u wanaagsan tahay laakiin dee maxaa fursadihii laga faa'iidaa haddii dadkii soomaaliyeed ee degaanka ku noolaa ay iskhilaafsan yihiin waxa iyagii baa la isku diraya marka taa waxaa ka horeysa in shirar la qabto oo dadku uu midoobo dadku inuu qadiyad ku midoobo maaha masaalix qadiyad inuu ku midoobo maasha allah culays bay noqonayaan si guud baa culays miisaan baa la yeelanaya okay waaya waxaad soo hadal qaaday city gobolka city koley ilaa heer waad kala socotaa dhibaatada ka jirta barakaca qaxa xasuuqa saddex magaalo waaweyn baa dadkii laga barakiciyey waxaana runtii aad farta loogu godaa dowladda dhexe iyo ciidankii cafarta oo dhan oo hubeysan oo iswata maxaad ka odhan lahayd adigu dhibaatada xagga ka jirta maadaama aanad wadankii joogin laakiin waxaan rabaa maadaama khibrad siyaasad aad leedahay wixii qayb aad kula socotid sidoo aragtaa dhibka ka jira maanta galbeedka city qadiyadaasi si fiican baan ula socdaa waana arrin aad iyo aad looga xumaado qalbigana uu la gilgilanayo ayaan darro waxaa ah cafar walow aanu dad ehelan nahay oo dadka degaanka kuushiitiga weliba
dadka isugu dhow baanu nahay cafarta oromada kale waa naga xigaan iyagu oromo maba aha hadde waa cafar waa dad islaam ah waa dad aan isguursanno isla dhalay waa jirtaa in jifiyada qabiilka ciisaha ay xuduud wadaagta yihiin inay wax dhex marmaraan oo dee taas soomaalidii gudaheedii baa xataa ay wax dhex maraan qabaa'ilka laakiin sidii hadda u dhaqmeen aad iyo aad iyo aad si u liidata weeye aad isleedahay ka faa'iidaysta fursadda waxa ayaan darra marka oo kale dadaad ka xoog weyn tahay ha ku cunaan saddex jaho soomaaliya ka jidha cafarta misena dadkan soomaaliyeed oo ay dhibayaan soomaali weyntii baa gadaal ka fadhida misena iyadoo saa tahay bay dhibaatada intaa la eg geysteen arrintaasi dowlad deegaanka waa ay ku eedeysan tahay xaqiiqatan dowladda dhexe inay wax ka wado waa muuqataa waayo weligeed cafar intay kusoo duusho deegaano soomaaliyeed ma weerarin sida la sheegayana geostrateejiyadda dagaalkaasi waxaa waddadaas in soomaalida laga fogeeyo hadda dad dhulkoodii lagama fogeyn karo caqli xumatii u liidatay wey waayo qofka haddaa maanta ka xog badisid duurku ku gelayaa see adiga u degaysaa degaankii adigiina imtixaan baa ku haysta marka waa caqli xumi arrintaasi arrin waxa weeye kolley xisaabtankeeda mar danbuu iman doonaa inta hadda la kala daadsan yahay gobolkii oo dhan baa karkaraya hadda oo wax badan baa isku dhafan laakiin arrin laga aamusaya maaha arrin taariikhda gelaysa weeye lagana xisaabtami doono wax suuragalna maaha gobol dhan dad degan in la barakiciyo suuragal maaha gooray noqotaba iyagana hub waa helayaan waana soo ceshanayaan dhulkoodii gabagabadii baan ku jirnaa laakiin laba qodob laba su-aalood oo kookooban waxaad soo hadal qaaday soomaali weyn waxaa lagu eedeeyaa xukuumadda soomaaliya iyo Djibouti-ba in ayna marnaba ka hadlin xasuuqa lagu hayo dadka galbeedka city sidaad u aragtaa inayna ka hadlinba oo ayna hadal qaadin oo ayna dhaliilin xitaa aanba eedeyn amba wuxuun ayna gargaarin xitaa u gudbin dadkaas waxaan u arkaa fulaynimada hogaamiyaashooda tilmaamaha hogaamiyaha laga doonayo waxaa ka mid a geesinimo qofka hogaankaa inuu geesi yahay inuu dhiran yahay inuu waxa jira xaqa ah kaga hadli karo inuu ka hadli karo waxa xaqa jira weliba markii ay khusayso dadkiisa oo dulman waxa weeye dadka maamulada Soomaaliya ma aha dowladda dhexe kaliya xataa kuwa maamul goboleedyada yani wax badan baan maskaxdayda isweydiiyaa sababta ay xataa maamul goboleedyadii shibu yihiin dadka dad Soomaaliyeed weeye hadday soo qaxaan xaq waxay u leeyihiin meesha ku nool yihiin inay kula noolaadaan sida iyagaba hadday u qaxaan ay u soo dhoweyn lahaayeen marka wax kale kuma tilmaami karo waana ay ku qurux badan tahay inay delegationna diraan inay safaaradaha Ethiopia la hadlaan waayo iyaga codkoodu miisaan buu leeyahay waa dowlad la hadlaysa wey war dadka faraha ka qaada inay adduunyada gaarsiiyaan codkooda dadka dhiban codkooda inay adduunka gaarsiiyaan laakiin walaalow xaqiiqada waxay tahay Soomaali dhib ayan iyadu isu geyn cidna uma gaarsiin dhul barwaaqa ilaahayna siiyey degaan istiraatiijiyo intuu aadamigu noolaa taariikhda inta la hayo degaankaas waa shidnaa degaankiibaa wuxuu noqday mixnad nicmadii degaanku lahaa yaa mixnad nagu noqday marka waa ay qurux badnayd waana qurux badan tahay haddii codkayga maqlayaanna waa ugu baaqayaa inay dadkaas u hiiliyaan dadkaas Soomaaliyeed ee dhiban oo laga gardaran yahay maatada inay u hiiliyaan qof kastoo Soomaalina uu gacan ka geysto hiilada dadka waan rajaynayaa runtii in ay maqlaan fariintaas ay gaadho waayahay waxaan kusoo gabagabeynayaa maxaad kula talin maanta guud ahaan Soomaalida gobol ama dowlad deegaanka hadday xukuumadda tahay iyo hadday shacabka tahay si ay xuduudaheeda u adkaysato
masabkii siyaasadeed Soomaaliyeedna runtii awoodiisa siyaasadeed Soomaaliyeedna la soo celiyo. waxaan kula talinayaa hal waxa weeye diin baanu lahayn dhaqanna waan lahayn diin iyo dhaqan baa dhulka noo ilaalin jiray walow dhaqanku uu yahay mid diin ka yimaada dhulkan laysu dayn maayo dacaladiisii baad u jeedaa in maaragtay laga soo gelayo already gobolkii city iyo baddan Kenya ay sheeganayso weedha iyo dibiga maxaa kulmiyey soo maahayn hadalkii uu yiri ninkii Soomaaliya maxaa dhacdooyinkan dacaladan nalaga soo gelayo badii baa la fadhiyaa dhulkii baa la fadhiyaa goboladii baa la wada fadhiyaa laysu dayn maayo 1800 markuu qarnigu ahaa 2 qarni ka hor 1 bilyan bay tirada dadku adduunka ku noolaayeen 2020kiina 7 bilyan iyo 900 milyan way muddo 200 sano dadku waxay kordheen 6 jeer bay ka bateen intii ay ahaayeen 200 sano soo socotana 6 ku dhufo 8 imisay tagayaan dhulkan cidlada oo hodanka oo badda aragtay leh oo biyada aragtay leh wallahi inaan laysu daynin marka waxaan kula talinayaa nimanka Soomaalida hogaamiya meel kasto ay joogaan war aqli isu yeelo inta tashataan xataa haday afka isu soo dhaweeyaan cadowgu wuxuu dareemayaa dad tashanaya inay yihiin ilaahay uga baqa dadkaas aad mas'uulka u tihiin intaasaan dhihi lahaa Dr. Sadiq aad baad u mahadsantahay sidaan walaalaha u sheegay Dr. Sadiq waa nin caan ah oo dhakhtarna ah qoraana ah siyaasina ah oo runtii muxtarim ah oo madaxda Suudaan aad looga yaqaano Dr. Sadiq aad iyo aad baad u mahadsantahay waqtiga qaaliga na siisay waxaan ku leenahay assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته waxaan ku soo dhaweynayaa markaa walaalahan halkan aan insha Allah musigeera ugu dambeeyay مدكيدنتي ماهلي نيمان دنيا لين مديغو مدكيدنتي ماهلي دالي الدرحم موي دايما دالي ديدي دالي الدرحم موي دايما دالي ديدي دالي الدرحم موي دايما دالي ديدي